waxaan maaragtay mar labaad ana ku hadlay magaca shacabka reer Djibouti oo dhan qaraabadii ka baxay marxuumka maayarkii hore ee magaalada Muqdisho ilaahay maaragtay inuu samiri iibaan ka siiyo wallahi horta waxaan ku xasuusanayaa markii uu horeysay aan aragnay ee maayarkaasi magaalada Muqdisho wuxuu ahaa nin aad iyo aad u fiican nin afgaaban buu ahaa intii uu nala joogay caasimadda Djibouti nin muxtaram ayuu ahaa isla markii aan u diray macsuumkaba si degdeg ah ayuu walaalkay uga soo jawaabay ahayd markaas oo aanu ka sameynayna caasimadda aan ku dhigaynay shirkii guddiga sare ee ururka ku boobeen caasimadaha iyo maartay magaalooyinka islaamka amba afka qalaad loo yaqaan OCD markii sanadkii hore wallahi aad iyo aad ba maaragtay uga soo jawaabay baaqaasi amba martiqaadkan u jeediyay waxa kale oo aan xasuusanayaa walaashin gabadhii kale la socotay oo iyaduna maaragtay ku geeriyootay isla habeenkii qaraxaasi u dhacay aad baan uga xumaanay waxa weeyaan anagu waxa ku sugnayn dalka Benin caasimadda Cotonou markaan maqalnay warka xun isla markiiba wallahi murugo nagu dhalisay aniga ku hadlay magacii gobolka ama caasimadda Djibouti iyo shanta gobolba waxaan insha Allah ilaahay u weydiinana walaalkeen oo qof fiican ahaa cidda lagu jecel yahay ifka aakhirana waa lagu jecel yahay in ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo qof fiican maanta halkan aan ku sugan yahay xafiiska maayarka waxaan ka xasuusanayaa maalintii horeysuu naga soo booqday inuu ahaa qof maaragtay aad iyo aad shaqaalaha xafiiska meeriga waxaad moodaysaa inuu la soo shaqeyn jiray si fiican ayuu la hadlayay qadarina wallahi ugu munaa ilaahayna waxaan u rajaynaynaa naxariistii janna ka waraabiyo nin walba halkaas u mari doona inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan kale oo maaragtay u rajaynayaa caafimaad qab intii kale maaragtay ku iyaguna dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi mar labaad waxaan doonayaa inaan taxsiyad u soo jeediyo xukuumadda Soomaaliya oo had iyo jeer la tacaalisa sidii nabadeynta Soomaaliya waxa weeyaan insha Allah taala waxaan u rajaynaynaa oo dalkii Soomaaliya nabadiisii sidii hore ugu soo noqoto anigoo ku hadlaya mar labaad magacii xafiiska maayarka magaalada Djibouti waxaan iyo xukuumadda dhammaan xukuumadda Djibouti iyo shacabka reer Djibouti oo dhanba waxaan leeyahay samiri iibaan ilaahay aniga siiyo shacabka waliba gobolka Banaadir ku nool iyo shacabka Soomaaliya oo dhan meel walba ay joogaan